كده شعاع مرة عد ملهي وين كوت كده في دنوانو هذا قرب لي شغل وين الناس اللي مختار ولا اساسا وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal runtii maanta waa maalin murugo badan weeyaan waa maalin murugo badan waa maalin runtii samaawaadka iyo dhulalka ay ooyayaan weeyaan maalin aad iyo aad u culus weeyaan maanta waxaa inoo taalla waa tacsi weeyaan walaalo ayaa la laayay waxaa laayay walaalahood kale ayaa laayay hadalka aad u fiirsada waxa la laayay waa walaalo aan dembi gelin waxa laayay waa walaalahood kale oo dembiilayaal ah walaalihii ayaa walaalahood laynaya xabiibkeena sallallahu alayhi wa sallam uu inoo sheegay arrinkan uu inoo sheegay oo wuxuu yiri saacadu dhammaan mayso ilaa ummaddu ay uga timaado maalinkan oo kale dadku ay qaatilku uu dilayo maqtuulkii maqtuulku uusan garanaynin micnaha kan la dilay walaalaas dilaya kan la dilay uusan garanaynin waxa loo dilayo kan wax dilayo uusan garanaynin wuxuu walaalkii u dilayo walaalaha saaka xalay maxaa lagu laayay xalay maxaa lagu laayay walaalahan guryahoodii dhaqanaya maxaa lagu laayay ku sheekaysanayay meesha jiifay meesha maxaa lagu laayay haddii la weydiiyo oo la soo nooleeyo kuwa wax laayay haddii ay jiraan wax baxsaday haddii la weydiiyo ma garan karaayaan ma sheegi karayaan waxay walaalahood u dileen kuwa la dilay haddii la soo nooleeyo Allah u naxariistee ma garanayaan waxa loo dilay waxa dhiigoodii loo daadiyay ma garanayaan waa ayaan darro waxaase halkaa ka cad rasuulkeenu inuu yahay sallallahu alayhi wa sallam rasuul xaq ah maxaa yeelay 1430 dhowr sano ka hor ayuu noo sii sheegay arrinkan inuu dhacayo walaaluhu dilayaan aanay garanaynin haddana waxay u dilayaan halkan waxaan tacsi tiiraan la uga dirayaa eheladii dadkii dhintay dadkii xalay halkaa shalay lagu laayay xalay halkaa ku dhintay ayaan tacsi tiiraan la u dirayaa ilaahay waxaan ka bariyay intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhimatay Allah u naxariisto qabrigooda Allah u waasiciyo dambigoodii Allah dhaafo kulli wala qaati dambigoodii intii badnaydee ilaahay inta kalena ha u dhaafo ilaahay waxaan ka bariyay jannaadkiisa fasiixa ah sideeda ilaahay deeqdii cadligii ma aha ilaahay fadligii inuu ku geeyo jannadiisa eheladii ay ka dhinteen oo ay ka tageenna samir iyo iimaan Allah ugu deeqo wax aad looga tiraayo wallahi wax aad looga tiraayo wallahi waxa lagu dilay gabadha miskiinta ah ee uurka lahayd khayrka waday hodanaa leeyahay Allah u naxariisto Allah u naxariisto runtii hodan walaasheena jaamac fariid waxa weeyaan waxay igu leeyihiin runtii culays gooni ayay ugu leeyihiin labadaa isqaba jaamac fariid wasiirkii hore walaasheena hodanaa leeyahay Allah u naxariisto Nairobi annagoo joogna أنا اسكو مهرية لبضوضة
arooskoodii markii uu dhacayay anaa isu xalaaleeyey Nairobi ayaa runtii gaari la ii soo diray waa israacnay gurigii cusbaa falaatiyaalka ku yaala ayaanu tagnay anaa isku meheriyey anaa isu xalaaleeyey runtii anuu haddana xamar jooga ayaa ay ila soo hadleen oo ay yaraaheen Kismaayo ayaanu nimid hoteelka jaamaca ee xeebta ku yaala habeenaan ka casheeyey waxay yaraaheen haddana waa mar kale aanu ku soo casuumeynaa markaad timaadid Kismaayo cafi walaalka aw timaadid meel kale degi maysid annagaad nala degaysaa annagaad naga mid tahay gabadha runtii waxaan u tacsiyeynayaa oo aan ilaahay uga baryaa inuu sabir ku irsaaqo aabaheed aniga la hadlay aabaheed oo jooga inay laascaanood ahayd iyo inay tuulo u dhow ahayd ma aqaan ayaa la igala hadalsiiyey anuu igu soo wareejiyey runtii walaayadii anaana sidaa ugu meheriyey ilaahay waxaan uga baryayaa gabadha iyo saygeeda dembigooda inuu dhaafo xaq darra lagu dilay gacan runtii ka gardaran ayaa dishay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo dembigoodiina inuu dhaafo inuu intii ay ka tageen samir iimaan waxaan kaloo tacsiyeynayaa walaalaha kale ee ku dhintay walaalaha dhow iyo walaalaha dheer inta Soomaaliya halka ku dhimatay ayaa runtii u tacsiyeynayaa tiraayada aan u diraaya idaylkoodna waxaan leeyahay ilaahay haydanka dembigeena ilaahay ha dhaafo ilaahay dembigeena ha dhaafo qabriga idin waasiyo qiyaamaha idin shafeeco jannatul firdawsna rasuulka maciisa Allah idin geeyo intii aad ka tagteen samir iimaan Allah idin ka siiyo wixii ciyaali aad ka tagteen intii agooma ah ee aad ka tagteen ilaahay waxaan ka bariyay muslimiinta oo dhan inuu uga yeelo waalid iyo walaal inuu uga yeelo laakiin waxaan u sheegayaa inta dhibaatada geysatay ee dhimatay abaalkoodii way hayaan maanta way hayaan qofkii mu'min kas u dila فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما شن عقاب إلهي أقتل قلمانتنا وحن هو ددك دنتي ظالمين تاها قاتلين تاها وحن هو مانتا ويهيان أبالكودي ويهيان جزوه دينا ويهيان وانا هو دل كان كليا إنا ندلين إني هوري وحسو اللايين in ay dhiig badan soo galeen dhiigga hore ilaahay ku qaban maayo oo kugu qaban maayo inaad toobad keentid waqti baa laga yaabaa inuu ku siiyo laakiin markaad dhiig yacab noqotid qaatil ah zaalim ah mujrim ah faasid ah mufsid ah maalin buu ilaahay ku qaban maalinkuu ku qabtana waa kan sida kuwan loo qabtay maanta abaalkoodii way hayaan abaalkoodii ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu cadligiisa fadligiisa maaha inuu cadligiisa kula dhaqmo intii soo abaabushay ee ka dambeysay ee nool ama lacaga ku bixiyay ama gawaarida u siiyay ama qalabkii la qaraxa bixiyay ama wax ka maleegay ama wax ka ogaana way sugaysaa ciqaabtaas oo kale ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu kuwa soo qabto wayna soo qabanayaa ilaahayna wallahi uu soo qabanayaa ilaahay wax ka fakanaya inaanu jirin ummadda ilaahay uga baqa annagoo halkan ka kameega joogna ayaa nin noo sheekaynayaa wuxuu yiri halka iyo section 3 Kenya isli section 3 waxaanu jaar ahayn buu yiri waraad u dhageysta warka dhagaha qalbigiin dhahaad la adihiina qulubtaad la adihiina Soomaaliy dhageysta khaasatan kuwa isbaarada dhigta kuwan ya mufsidiinta ah dhiigya cabka ah nabadda diida war wax dhageysta wallahi ninka wuxuu yiri waxaanu daris ahayn nin subax walba meel kariyo bangel yiraahdo oo ariga xoolaha lagu qolo Nairobi ayuu u kalahaa waa subax walba aroortii buu kalahaa saad marka laga baxabo wuu carara ninka waxba ma soo qaado markuu soo noqonayo waxba isagoo sida iman maayo waan weydiiyey subax walba xageed u kalahdaa ninka waan ka shakiyay buu yiri subax walba xageed u kalahdaa wuxuu yiri nin yahow waan gubanayaa buu yiri guriga ma joogi kari habeenkiina ma leedi maxaa kugu dhacay
wuxuu yiri waxaan aadaa kariyo bangi halka xoolaha lagu gowraca dhiig ayaan raadsadaa buu yiri dhiig buu soo cabaa halkaasuu lacag bixiyaa weel baa loogu shubaa dhiiggaasuu 2 galaan buu soo cabaa ama 3 galaan buu soo cabaa waa maalin walba kariyo bangi waa laga yaqaanaa ninka imise jir dhowr iyo 80 jir weeyaan sababta markaan weydiiyay ninka wuxuu yiri isbaaran dhigan jiray dad badan baan soo laayay Soomaaliyan ka imid buu yiri Soomaaliyan ka imid ninka marka dhiigii uu gali jiray wuu u baahan yahay qof mar hadduu dhiig galo dhiig hadduu galo diintiisa ciriiri noqonaysa iimaankiisa baa ciriiri noqonaya dhiig buu ku dhiibayaa ilaa xoolaha dhiigooda markaad bani aadanka leysatid يا بني آدم dhiigoodii markaad leysatid ilaa kuwii dugaagii xoolaha aad u dhacdid waa 85 sano ayuu jiraa halka ay karee bangi xoolihii la gowracay dhiigoodii buu soo cabaaya markaasuu qaboobayaa ilaahay kuma qaboojiyo meeshad ku qaboobaysidna waa cadaabkii jahannamo weeyaan qof walbo dhiigi caba qaatil ahna wallahi jahannama iyo cadaab kulul buu ilaahay ugu darbay war ilaahay ka baqa ummadda ilaahay uga baqa oo ummadda dhiigeeda daaya siyaasadii baa dadku ku leysay oo qabiilkii baa dadku ku leysay masaakiintii aad u taleyseen waad baabi'iseen ilaahay uga baqa ilaahay waxba kama qarsoona allah dhahaya wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah مالك قيامها ميزان عادلين أي عادل أيانو ديجينا عد كبحسنيس إلهي هبيراتي ملها والله إن إذا بحسنين الدون كيدا كو بحسنين ديلا دتك والله مركز ليسان والذين سقايا بتصدى ديجي عبا دتك الظلمة دعا فوقية waxaad ogaataan dambigiina lagu badinaya cid aad leynaysaana waqtigoodii ma aanay dhaafin waqtigoodii bay ku dhinteen markii hore way dhiman lahaayeen laakiin maanta waxa waaye dambigoodii baad qaadanaysaa hadba intaad cadaabka u adkaysan kartaan laaya dadka oo ilaahay ka fogaada ilaahay ummadda uga baqa ilaahay ummadda uga cabsada ilaahay ummadda masaakiinta saxali maxaa lagu laayay maxaa lagu laayay dadkan dhimanay maxaa lagu laayay maxaa dadka gabadha yar miskiinta maxaa loo ilmaheedii loo rajeeyay maxaa loo rajeeyay oo maxaa dadka kale masaakiinta aabayalka aad laayeen ilmahoodii maxaad ku agoontimayseen waa siyaasad qurun ah siyaasad markii hore ciriirahay idin kala geysay xaaraan aad ku gaarayseen markuu xabiibka kursiga ka digayo waa ka وهوج يهلك بيري أبا ذر ودي انتو